kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kastaad joogtaan iyo si kastaad noo daawanaysaan qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena maanta aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ugu baaqay hoggaanka dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay ka qayb qaataan dagaalada ka dhanka Al-Shabaab qoor iyo lafta gareen oo u hoggaansamay fariinta ka soo yeertay madaxweyne Farmaajo barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doono golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo aadan xilli ay gadaal isaga riixeen in kulankooda looga dhawaaqo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka taliska ciidanka booliiska iyo xoogga iyo taliya-odawa Yuusuf Raage oo intaasii kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud u diray warqad uu ku gudbinayo in uu rabo inuu xilkiis ka casilo barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa dagaalamayaasha Al-Shabaabna waxay beddeleen xeeladii ay u adeegsan jireen dagaalada ay la gelayaan ciidanka dawladda ayagoona shacabka deegaanada ay haystaan ay ku amrayaan inay la guuraan dagaalyahanadooda taa oo ku qasbaysa in ciidamada qaranka markii ay deegaan ay qabsadaan si dhaqsi leh ay uga soo baxaan xeeladaani cusub oo ay adeegsanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab cidda daboolka ka qaaday ayaa idiin soo gudbin doona tirada dadka sanadkan lagu xasuuqay gudaha Soomaaliya oo la shaaciyay halka ay la eg tahay barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh balse haddii ay tahay daawade markii kugu horreeyey ayaad soo booqatay janalkeenna waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka warbixinnada iyo macluumaadka xiisaha leh ee xilli weliba aan halkan soo gelinno mahadsanediin dhammaantiin aan ku bilaabo barnaamij wareedkeenna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa qadka teleefoonka si wada jira waxa uu kula hadlay madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen asigoona ka dalbaday in deegaanadooda ay ka bilaabaan dagaal ka dhan ah Al-Shabaab maadaama maamulada kale ay ka socdaan dagaallo Farmaajo ayaana fariintiisa waxay ahayd mid uu kaga codsanayay hogaamiyaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ay saaxiibo dhow yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan deegaanadooda ay ka bilaabaan warar lagu kalsoonaan karo oo Soomaali Barees ay ka heshay wadahadalka dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis lafta gareen ayaa waxay ku waramayaan in Cabdicasiis lafta gareen iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay aqbaleen soo jeedinta uga timid madaxweynahoodii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isla markaana ay u sheegeen in maalmaha soo aadan ay abaabul iyo qorshe dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab ay ka bilaabi doonaan deegaanadooda si gaar ah Cabdicasiis lafta gareen ayaa wuxuu madaxweyne Farmaajo u sheegay in magaalada Baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee Koonfur Galbeed inuu u gaaray sidii uu uga jawaabi lahaa fariinta iyo codsiga uu soo diray madaxweyne Farmaajo taasoo ah in deegaanada Koonfur Galbeed iyo Galmudug laga bilaabo abaabul iyo sidoo kale dagaal ka dhan ah Al-Shabaab Qoorqoor ayaa dhankiisa la sheegay in Farmaajo uu ballan qaaday in maalmaha soo aadan dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan deegaanada gobolka Galgaduud oo si aan u buurneen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu ka socdo balse la xoojin doono deegaanada kale ee ka harsan maamulkiisa madaxweyne Farmaajo ayaa fariinta uu u diray labada hogaamiye ee dowlad goboleed ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed wuxuu rabaa in uu isaga dhaqo fadeexad maalmihii la soo dhaafay la hubinayay ee ah in Farmaajo iyo xisbigiisa nabad iyo nolol aysan daacad ka ahayn dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay bilowday qodobareedka xiga ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ansixiyeen miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo aadan ayagoona gadaal isaga riixay in kulankooda dhexdiisa lagu magacaabo taliyayaasha ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa booliiska golaha wasiirada xukuumadda ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen oo ay shacabka Soomaaliyeed aad uga dhoorsigayeen natiijada ka soo bixi kartay ayaa waxa ay kulankooda ay ka soo saareen inay ku meelmariyaan
miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo aadan ee 2023 oo ka kooban dakhliga gudaha iyo sidoo kale deeqaha taa oo gaaraysa 967.7 milyan oo dollar. miisaaniyadda sanadka soo aadan ayaana xoogga lagu saarayaa sare u qaadista dakhliga gudaha oo hadda la rajeynayo inuu ka sare maro sanadihii la soo dhaafay, iyadoona rajada ugu weyn ay tahay in uu gaaro 283.3 milyan oo dollar, halka sanadihii dhammaadi uu ahaa 247 milyan oo dollar. golaha wasiirada ayaana kulankooda oo ay yeesheen waxay isaga fogeeyeen hadalheenno aad u xooggan oo ahaa in golaha wasiirada kulankooda ay dhex taallo waraaqad ay ku kala dirayaan taliska ciidanka xoogga dalka, islamarkaana xilalka looga qaadayo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal Oduwaa Yuusuf Raage iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. waxaana kulankooda ay u muuqatay mid ay gadaal isaga dhigeen in hadalhayn badan oo jirtay aawadeed ayna ku degdegi karin in taliyayaasha ciidamada xilka laga qaado, si gaara taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jenaraal Oduwaa Yuusuf Raage. markii uu soo dhammaaday kulanka golaha wasiirada kadib waxaa la sheegay in taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal Oduwaa Yuusuf Raage warqadda istiqaalada uu u gudbiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud, islamarkaana uu ka codsaday in xilka laga qaado maadaama howsha ciidamada uusan hadda rabin in uu sii hogaamiyo. Oduwaa ayaana waxa uu sheegay in uu ka war helay in kulanka golaha wasiirada ay yeesheen ay ku dhiiran waayeen in warqadda dhextiile ay ahayd in xilalka laga qaado taliyaha militariga iyo taliyaha booliiska ay shaacin waayeen, sidaasi darteedna uu asiga dalbanayo in xilka uu isaga tago maadaama dhowr sano uu xilkaani hayay, tiimkiisana ay talada dalka ay wareejiyeen, sidaasina aan looga maarmin inuu asigana si la mid ah uu xilka iska wareejiyo. qodoboreedka xiga ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno, kooxda al-shabaab ayaa waxay beddeshay xeeladii hore ay u adeegsan jirtay dagaalada ay la gelayso ciidamada xilli dhul badan ay ku lumisay gacanta ciidanka dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jira, ayagoona garab ka helaya shacab Soomaaliyeed oo is-abaabulay. dagaalamayaasha al-shabaab ayaa hadda waxay dib uga laabteen xeeladii hore ay u adeegsan jireen dagaalada ay la gelayaan ciidanka, taas oo falaqeeyaasha dhinaca amniga ay rumaysan yihiin inay caddeen u tahay kooxda inay hadda ay la ciirayso in aysan diyaar u ahayn isku dhac dagaal oo sababa dhimashada maleeshiyaad badan oo kooxdaasi. xeeladan cusub ay bilaabeen al-shabaab ayaa ah in dib ay uga baxaan deegaanka, ayagoona ka hor inta aysan dagaalyahanadooda aysan ka bixin deegaanka ku qasbaya in gebi ahaanba deegaanada ay hayaan ay isaga baxaan shacabka ku nool ka hor inta aysan soo gelin ciidamada. taasi oo ay kooxdu ay samaysay ka hor inta aan laga qabsan dhowaan deegaanka Wabxo, kadib markii ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay gudaha u galeen deegaanka Wabxo oo noqday deegaan maran oo shacabkii ku dhaqnaa iyo al-shabaab ay mar qura isla guureen. xeeladani oo hadda ka hor ay al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada Ceelbuur ayaa lagu macneeyey dadaallo looga hortegayo in xiriir uusan dhex marin dowladda federaalka iyo dadka deegaanada ay qabsadaan ciidamada dowladda. al-shabaab ayaa xagjir waxay ka dhigaan shacabka deegaanada ay qabsadaan. guud ahaanna barnaamij wareedkeennii qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey saaxiibayaal ee nabadgelyo dhammaantiin.